qabsaday wax ma ka sameyn wax ma ka galabsanin mid labaad maxaa galabsaday adduunka ay ugu ciqaabteen nimanka adduunka ma idinkaga tagaa أنا بركان هورني فهموا آموس أباش ragga adduunka عبد القادر جيلي الله عبد القادر جيلي الله نكاس وعود شوقا مقالة نيروبي وأنا ريم مقدشو كيمي فهموا إنه كفصدوا الربي sida daawada muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtay waa arintii fahma fiican oo waji labaad yeelatay fadlan si aan kula wadaago xogaha sirta ayaa hadda arimaha soo ifbaxay fadlan nagu soo biir oo asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhaanaya gambaleelkana u furanayo muuqaalkana like la dhacayo wixii fikirkaaga ee commentiga noo wadaag arintii fahma fiican oo waji labaad yeelatay iyo ninkii qorshaha u dagay oo isku dayay in uu kufsado oo banaanka la keenay oo magaciisa lagu sheegay Cabdiqaadir in la dhaay uu magaalada Muqdisho ka tagay Nairobi uu u tagay nin hadda ka hor la sheegay in fahma fiican uu muuqaal ka duubay oo ninkaasi soo diray uu dhahay fahma Nairobi ay joogtaa Nairobi ku baro kadibna muuqaal iga soo duub ama kufsi haday arinta oo hadda ayuu Karla ka hadlay iyo dadka social media oo fahmo oo live soo fadhiisatay oo sheegtay in uu ninkaasi loo soo diray nin kale oo u soo diray oo isku dayay in la kufsado markii kufsiga uu hirgeli waayayna qolkii lagu kufsan rabayna 5 gabdhood loo keenay 5 gabdhood ee fahmo wajigeeda dhaawac iyo burbur iyo saameyn iyo xoogan ee u geysteen dagaal sidaas loogu bedelay kadib laga dhigay in fahmo ay dadka dariska oo gurigaasi degan ay la dagaashay sidaas boolis loogu yeeray fahmo oo isku dayday oo dadka social media idil hadda u cabatay haddana dadka qaar oo markii dadka ay la hadlayso fahmo ay leeyihiin qofti jirkeeda ka ganacsanaysa ayaa tahay dadka baraha bulshada idin la hadda ay dadka Soomaaliyeed u sheegayso in dabin loo maleegay ay tahay oo kufsi la rabay laakiin kufsiga uu hirgeli waayay uu Ilaahay ka badbaadiyay laakiin xabsi sidaas loogu diray arintan oo hadda la soo ifbaxay ayaa waxay fahmo afkeeda ka dhawaajisay ninkii hore oo muuqaalka ka duubay in uu arintan ka dambeeyay oo asigana gacan saar u xiriir kala lahaa arinta wiilkan hadda cusubna oo asiga uu soo diray si muuqaal uu ugu soo duubo muuqaalkeedana social media la soo dhexdhigo arintaas oo laakiin hirgeli weysay ayaa wuxuu sameeyay ayay tiri fahmo fiican waxay afkeeda ka dhawaajisay in uu 5 gabdhood u balamiyay oo lagu goobtay oo la dagaalamay ayadiina wajigeeda dhaawac loo geystay uu gabdho meesha ugu balamiyay kadibna uu stationkii inuu booliska telefoon u diray ayaa wuxuu yiri gabdhahan ayaa la dagaashay qoftan ayaa dulmi sameysay ama gardara cad ah sidaas fahmo lagu xiray arinteedu oo hadda laakiin soo ifbaxday ee ogaatay in ninkan loo soo diray magaalada Muqdisho loogu soo diray Nairobi oo ayada darteedu uu yimaaday in uu muuqaal xun ka duubo oo kufsado si muuqaalkaasi baraha bulshada uu soo dhigo ama mar kale loo fadeexeeyo fahmo oo iska oynaysa ayaa live soo gashay oo arintaas oo idil cadeysay fadlan soo dhawow daawada muuqaal ayaan kula wadaagi doonaa qabsaday wax ma ka sameyn wax ma ka galabsanin mid labaad maxaa galabsaday adduunka ay ugu ciqaabteen nimanka adduunka ma idinkaga tagaa أنا بركان هورني فهموا آموس أباش ragga adduunka عبد القادر جيلي الله عبد القادر جيلي الله نكاس وعود شوقا مقالة نيروبي وأنا ريم مقدشو كيمي فهموا إنه كفصدوا الربي نبكى waa isdifaaci intaas ka bacdi markaa isdifaaci waayo waa qeeliye markaa qeeliye buildingka dad badan degan dadkii inta isku soo baxeen sheekadii muxuu bedelay inay gabdhays dagaaleen